Ra'iisul Wasaaraha ayaa geesta kale waxa uu ku booriyay muslimiinta in ay xoojiyaan cibaadada inkasta oo lagu jiro xilli adag oo ay dunidu la tacaalayso fayraska corona. በመላው ዓለም መስጊዶችን ጨምሮ ቤተ እምነቶች ሁሉ ተዘግተዋል። dhammaan goobaha cibaadada ee adduunka oo dhan oo ay ku jiraan masaajidadu waa ay xidhan yihiin waxaase aan awoodnaa in aan guryaheena ku cibaadaysanno oo aan eebbe ku xusno nabi maxamed waxa uu inagu booriyay in xilliyada adag aan ducada kaashanno oo aan ilaahay ka cabsanno dembi haddii uu inaga dhacana waxa laynooga baahan yahay in aynu wanaag ka dambaysiinno dadkana aan kula dhaqanno dhaqan wanaagsan sida uu nebigu kula taliyey saxaabigiisii mucaad binu jabal. allahn ፍራው ኃጢአት ከሰራህ በመልካም ተግባር አስከትል ይጠርገዋልና። abiy ahmed ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale waxa uu muslimiinta ugu baaqay in ay raacaan talaabooyinka laga maarmaanka si loola dagaalamo faafitaanka fayraska corona. ቡኻሪና ሙስሊም እንደዘገቡት እንዲህ ብለዋል sida ku cad saxiixyada Bukhari iyo Muslim waxa la inoo sheegay haddii uu meel safmar ka dilaaco in aan la gelin haddii goobta aad joogto uu ka dilaacana in aan laga bixin dhaqdhaqaaqa oo la yareeyo iyo goobaha dadku ku badan yihiin oo laga fogaado waxa lagu xakamayn karaa cudurkani si haddaba loola dagaalamo fayraskani corona dadka laga helo waa la karantiimaa waana cashar laga bartay nebi maxamed sida uu wariyey Abu Daa'ud shakigama jiro in dadka muslimiinta ah ay garab siinayaan xirfadlayaasha caafimaadka. የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል ugu dambeyntiina waxa uu ra'iisul wasaaruhu bulshada muslimiinta kula dardaarmay in ay xoojiyaan sakada iyo sadaqada gaar ahaan xilliga lagu jiro bishan Ramadaan. ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሃ እሳትን እንደሚያጠፋ ሁሉ nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu inoo sheegay in sadaqadu ay xumaan tallaabaha u tirtirto sida ay biyuhu dabka u baktiyaan inta uu jiro dhaqanka sakada iyo sadaqadu ma jiro qof Itoobiyana oo dhigtoonaya የቆዩ ዘካንና ሰደቃን የመሰሉ ሴቶች እያሉን አንድም ኢትዮጵያዊ መቸገር የለበትም። rintiisa ugu dambaysa ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu muslimiinta ku booriyay in ay wax walba ka horeysiyaan amalka wanaagsan. ra'iisul wasaaraha ayaa haddaba fariintiisan hambaliyada ah waxa uu sidoo kale muslimiinta ugu baaqay in iyadoo lagu jiro xilli adag isla markaana aanay suurtagal ahayn in la isku yimaado oo si wada jira loo afuro balse loo baahan yahay in la iscaawiyo iyada oo sidoo kale dadka jilicdasan la taageerayo. ረመዳን ለብቻ ማፍጠር ሰርግን ለብቻ ከማድረግ በላይ ከባድ ነው። in aad kaliga afurto bisha Ramadaan aad ayay u adag tahay xilliga aan ku jirno ayaan wax badan inoo suurtagelinaynin waxa sidoo kale aan suurtagal ahayn masaajidadii aan isugu imaan jirnay iyo salaadii taraawiixda iyo in aan sidoo kale isku soo ururno oo aan si wada jira inaga iyo dariskeenu u afurno laakiin waxa la inooga baahan yahay in dadka jilicdasan aynu caawinno isla markaana afurino ችግረኞችን በያሉበት ልናስፈጥራቸው እንችላለን። ra'iisul wasaare abiy ahmed ayaa haddaba sidoo kale waxa uu dhammaanba dadweynaha kala duwan ee haysta diimaha kala gedisan ee dalkan Itoobiya ku nool oo kula dardaarmay in ay si midaysan uga soo wada jeestaan la dagaalanka loogu jiro faafitaanka fayraska corona isagoo oo tilmaamay in hawlaha cibaadada iyo ducada sidoo kale loo baahan yahay in isteegaarsi si wada jir ah lagu weheliyo. ይህንን የችግር ወቅት በፈጣሪ እርዳታና xilliga adag waxa aan kaga bixi karnaa deeqda eebbe iyo in aan istaageerno dhammaan muslimiinta kristanka dadka diimaha rumaysan iyo kuwa aan rumaysnayn ee Itoobiyaanka waxa la inaga rabaa in arintani aynu wada jir uga midowno isla markaana ducooyinkeenna aynu ku kabno istaageersi. ተከታዮች አማንያን ኢአማንያን የሆንን ኢትዮጵያውያን ሁሉ wali daawadayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa